runtii annaka maanta sharaf weyn ay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladan oo iyadu ah xaflad yacni xaqiijinaysa ballanqaadkii qaran ee ku aadanaa ilaalinta xuquuqda iyo karaamada iyo mustaqbalka caruurta. runtii xeerkan wuxuu muhiim u yahay dhismaha nidaam cadaaladeed oo caruurta la xiriira. ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay si buuxda ugu diyaargaroobaysaa hirgelinta halkan lagu ansixiyay lagu daafurayo iyo dhammaan habraacyada la xiriira ee soo raaci doona si loo fuliyo arrimahaas. runtii aan ku dadaali doono in aan saraakiil xigeenka ciidanka ku shaqada leh xabsiyada inay iyo dhaqan celinta inay ayagana noqdaan updated u ah xeerkan soo kordhay. runtii waa xeer hore u jiri jira oo qadiim ah, laakiin hadda waa la update gareeyay oo standardka maanta caalamka uu maraya ayuu xeerkii marayaa. marka annakan asluub ahaan qaybteena ayaan ka qaadanaynaa. waxaadna ka garan kartaan yani tirada aan ugu soo qayb galnay asluub ahaan. runtii waana ku mahadsanyahay wasiirka cadaaladda inuu nagu casuumo meeshaan. hirgelinta xeerkan wuxuu u baahan yahay iskaashi dhexmara bahda cadaaladda iyo hay'adaha xuquuqul insaanka. taas qaybteena ka qaadanayna insha allah. runtii wax in la alifo way dhib badan tahay, laakiin waxaa kasii dhib badan haddii markii la alifo oo dokumenti laga dhigo yani fulinteedii. marka waxaan rajaynaynaa markaa maanta cid allaale ciddii mas-uul aheed ee ku shaqada lahayd caruurta in ay maanta ay halkan nala joogto oo wixii aan qaban karno la qabto. waxaan kusoo gabagabeynayaa maanta ma ahna oo keliya daafur oo xeerka cadaaladda caruurta la daafurayo, laakiin waxaa dib loo cusboonaysiinayaa ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee ahayd in caruurta la ilaaliyo xuquuqdooda, la dhiso hay'ado cadaalad awood leh iyo dhisidda Soomaaliya oo ammaan ah oo cadaalad ah oo horumar leh. marka sida ku qoran yani halkudhiga caruur kasta waxay xaq u leeyihiin badbaado, daryeel, mustaqbal wanaagsan. runtii haddaad fiirsaan mujtamaceena maanta magaalada haddaan joogno Muqdisho ha ahaato maamul goboleedyada ha ahaato yani dadka nambarka caruurta yar oo ilaa iyo 14 jirka runtii waa tirada ugu badan. waa markaa walaalayaal aan u diyaar garoono dadkaas sidii markano loo soo dhaweyn lahaa oo ay waxa u yar yani aqal shay xaq ay u leeyihiin maxaa waay inay si nabad ah ku noolaadaan. marka inaan taas ka wada qaadano yani waxa waaye anagoo wada jirna wax badan ayaan caruurta u qaban karnaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.